بسم الله الرحمن الرحيم إلهي وما هذله إله سكان كلنا قلنا وضع قبنا إله نمعين كبدين السيء نوضع عافماتك رواقة يروبك نبت قليدة ينمعين كبدنا كلا إلهي نسيء محضله إلهي وحن كبريناه سجى أود له إنه أفوي كتير أدونك إنه قرر مريو إلهي وحن كبريناه إنه يتعال ما هينه سجى أود له قامها إنه تاجناه إنه إلهي أفوي كده أدون كودن كيابي نهارير مريو إلهي يتعال مله الآن كبرين ما أنت هالك قرنك ما ده حديث واحد يسوي تبد قدرك أقوين وحوي إن لقاه الله سيدي أي نساك عشان هاي النوام مذا وقبض بعد لهين dadkeena uga ilaalin lahayn intii suurtagal ah inaanu ka badbaadino xanuunkan adduunka ku faafay ee coronavirus xanuunkaas oo cid walba ka yaabiyay waxa lagu heshiyo adduunka oo dhan isku afgartay in laga bixi karo kaliya talo dawo male wax laga hortago male talaal male caalamka oo dhan wuxuu isku raacay inuu iswaaniyo waanada u kala qaato wixii uu dano isfahamsiyo wixii kalena waynu raacin ee danteena muhiimaddu waa arrinta xanuunka coronavirus oo baryahanba aad iyo aad looga dayrinayay waxaynu u samaynay guddi ka hortageed oo heer qaran ah iyo guddiyaal heer degmo ah iyo dad badan oo is-abaabulay hadday yihiin ururada samafalka hadday yihiin ururada dhalinyarada culimada dhammaan waxaan uga mahadnaqaynaa halkan shacabka somalilan dhammaantood siday uga hortageen ugu dadaaleen in laga hortago xanuunka ay u qaateen talooyinkii iyo waanooyinkii waxaan u mahadnaqaynaa culimada oo qayb weyn ka qaadatay in badanna laga sugaayo inay hawshaas sii kordhiyaan iyo dadaalkaa laga hortagayo ganacsatada oo qayb weyn ka qaatay markii loo yeedhay hawshiina ku maqan waxaana sii farayaa ganacsatada inaynu u baahannahay diyaargarow xoog leh oo inaynu dhaqaale ku talagalno accountiga loo furo meel la dhigo haddii ay xaaladdu inagu sii adkaato inay hawshooda sii bilaabaan iyo shirarkoodii iyo hawsha ay wadeen waxaanu mahadnaqaynaa bahda caafimaadka oo maanta xilka ugu weyni saaran yahay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhakhaatiirtii da-da ahayd ama waaweyneed ee shaqooyinkeeda ka soo taargaroobay meel ay joogaanba gobollada iyo dibadahaba oo dhammaantood waxna yimaadeen oo iminka iyagu hawsha wadaan rag badan oo ama jimcida qurana xisada soo shaqayn jiray huu ama dibadaha ka soo shaqeeyey oo gobol walba iyagu isxil saaray waxaan u mahadnaqayaa dadkii bartay caafimaadka oo dhammaantood isdiiwaan geliyey qof waliba halku joogo intii uu qaban karo uu diyaar yahay bahda caafimaadka oo mahadnaqayna bahda waxbarashada oo mahadnaqayaa ardaydii markay fasaxeen kama harin dhammaan jaamacadihii iyo iskuulladii waxay u sameeyeen duruus ka baxda idaacadaha iyo internetka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa xilkaa iska saareen inay aqoontii ardaydu sii socoto waxaan aad ugu mahadnaqayaa warbaahinta tu dowlad iyo tu madax bannaanba waxay fuliyeen xilkii ahaa maanta aan midowno xooggeenna aan saaro sida looga hortagaayo cudurka adduunka o dhan ka baqay aad iyo aad baan ugu wada mahadnaqayaa waxaan idinka wada codsanayaa dhammaantiin in la sii kordhiyo hawsha waayo weli waanu wadanahay waa fayoonahay ilaahay waa inoo rooye laakiin baqaynahay cudurka waa sii faafaya adduunka maalin walbaa soo kordhayaa waa hawlana dul taalla waxaan kaloon gaar ugu mahadnaqayaa dowladda imaaraadka carabta oo shalay diyaaradaha caalamka ee waaweyn xamuulka ah oo qalab caafimaad inoo keentay illusion 670 oo qaada ilaa iyo 60 tan ciidamada iyo howlaha lagu gurmada ah shalay keenay maantana qaybtii labaad keenayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa berigii hore duufaantu lagu dhacdayna way inoo soo gurmadeen dadkoodii dowladooda ugu mahadnaqeen mahadnaqa kadib viruskan ama xanuunkan isu sheegi mayno in badan baa laga hadlay siduu waxaan xoojinayaa keliya dhammaanteen waxaanu ka codsanaynaa inaynu fulino qodobada laga badbaadayo intaas waxaanu soo raacay oonu doonayna qof waliba inuu ka hadlo oo culimada ka hadasha sheekh waliba dhakhtar waliba dadkeenu suurtagal ma aha
dadka aan aqoonta badan lahayn ama aan isla weyda waqsan yihiin waxay ku hadlaan annagu muslim baan nahay naguma dhaco annaga cadceedda naga celiso naguma dhaco war waxaas wax jira ma xanuunkani gaal iyo muslim iyo yahuudi iyo cid buu ku dhacaa bini aadmigu dhan buu ku dhacaa bini aadmiganu ka mid nahay weliba qolooyinka ugu taag darannahay dhinac walba xagga caafimaadka xagga dhaqaalaha markaa waa inaynu taxadir dheeraada qaadanaaye qofna waa inaanu taa dad kala dhicin kulaylka dhulka kulul iyo kuwa kale labadaba ku dhaca waa la soo tijaabiyey markaa waxa weeye dadka iyaynaan ku lugoynin oo inaan dadkeenna ku jabinin waxaan macquul ahayn diinteennu 1400 sano ka hor ayuu nabigu yidhi alayh isalaatu wasalaam meesha daacun ku dhaca haddii aad joogtana ha ka bixin haddii aanad joogina ha gelin waa ta maanta adduunka isku raacay aqalkaaga kuwa ka soo bixin magaalada ha ka soo bixin ha tegin halka wax ka dhaceen oo dadkaaga ha galaafan markaa inagu dhibaatooyin kalaa dad kale inoo dheer waxaanu nahay dad aan dhaqaale badan haysan ma odhan karna dadka aqladan ku xidhayna waayo uma hayno dhaqaale aynu ku masruufo dadkeena waa garab rarto inteena badan 60% dadka magaalooyinka jooga aroortii way kala lahaan yaa arsaaq yaa fataax waxay la soo noqdaan bay cunaan markaa suurtagal ma aha inaan dhaw waan xidhayna inagoo wax diyaarin laakiin waxaan u baahannahay wixii daruuri in loo baxo qofku wixii daruuri markuu baxana inuu is ilaaliyo oo waxa la kala fogaansho iyo taabasha lagu kala qaado waxa weeye meeshii aad taabanayso inaad hubto in ama wax la mariyo ay siin ama la maylay haddii aanay suurtagalin is ilaali ilaahay wax ilaalinta la ilaalin karaayo dadkana guryaha kala fogaanshaha dad masaakiin aynu nahay oon dhaqaale lahayn oo guryaha 5 iyo 6 u seexda waxaa loo baahan yahay in intii la kala fudeyn karo la iskala fudeeyo marka wax dhacaan dadka qaar baa laga yaabaa inay ama beer leeyihiin ama miyiga wax ku leeyihiin waa loo saari karaa dadka taag daran carruurta meel ammaan waa loo saari karaa caqliga ayna siinay la kala fudeeyo marka waxaan istaagayaa dhibaatada caafimaad iyo dhibashada uu leeyahay Maraykan iyo Talyaani qof kastoo adduunka xanuunsada caafimaadka koobay ka Talyaanigu meesha loo diro Italy cid walba ka horreysay nin kastoo lacag leen kastoo madax maanta ayaga u liitay Maraykan waa arkaysa ilaahay nagu keenay hadii wax yimaada sasi mayno didi mayno baarak noqon mayno dad ilaahay qaanay nahay iimaan baynu leenahay oo ku sabrnaa wixii ilaahay keeno laakiin talana way ku darnaa adkays baarak hadhow hadii wax soo baxaan in la wada saso oo la saxaya maaha waa ku tira galeynaa waxaanu soo jeedinaynaa in ummadu kii dhaqaalaha iyo xoolihiisa maanta waa la leeyahay sakaa loogu leeyahay sadaqa loogu leeyahay dadkii baahan ninka taajirka dhexe ka waxba hayn ka 100 shilin haysta maanta waa inuu diyaar garoobaa in la iscaawiyo qodobka kooda waa ka iyo in la ismaqlo labada inaan waan isku daano xanuunka taasaan ku dhaafay waxaan ku xigsiinayaa iyadoo adduunkuba qasan yahay oo dadkuba nafta la wada cararayo oo la leeyahay fayraska meel walba maalmahan inaga waxaad moodaa inaan ugu soo dhex tuuray cid Somaliland la cadaway ay soo tuurtay wada hadallo iyo wada hadal la galaya iyo Somaliland iyo Soomaaliya wada hadlaya iyo saaraa la yeeraya in meediyaha lagu soo daayay horta waxaan sheegay maanta adduunka shirka socdaa ma jiro arrin la haleelayana ma jirto kuwa igad iyo kuwa jaarka iyo Soomaaliland midna haleelayo maanta waa Allah biya binafsi baa la taagay seenafta loola badbaadaa dadka loo badbaadiyo waxaan doonayaa inaan halkan ka cadeeyo oo ummadda Soomaaliland iyo caalamka u sheego Somaliland haddaan nahay in la wada hadlo oo Soomaaliya waa hadalkooda hore u furaa mudana aanu hirgelin in la wada hadlo oo danta aan isku haysanayo waxa naga dhaxeeya laga wada hadlo waa hadal lagu dhameeyo horena waa u qaadanay haddana waa aaminsan haddii aan rabaan waa mabdi'iyo waa qodobka koobaad manihin qolo ka baqaysa fagaare gartayadu waa noo cadahay horena waynu u dhamaysanay qarankuna wuu isku ogyahay leexleexadna maray dastuurka Soomaaliland wuxuu qorayaa Soomaaliland markay cid la hadlayso ama alliance la galayso ama wax ku darsanayso qodobka dastuurka wuxuu leeyahay waa afti dadweyne madaxweyne ma goyn karo golaha guurti ma goyn karo golaha baarlamaanka ma goyn karo saddexdooda taga ma goyn karaan waa qodob dastuuriya yaala nin dhaafi karaana ma jiro madaxweynaha maanta jooga anigu ma dhaafi karo kii iga horeeyay ma dhaafi karo ka iga dambeeyay ma dhaafi karo marka arrinta Soomaaliland wax la dhaqaajin kara ma aha ninka intaas siyaasad ka dagay ku soo daayay meediyaha waxbaan uga hadlaynaa isaga u taala annaga ma jirto dawlad igada ama caalamiya ama Soomaaliya
oo tiri shir baynu qabsanaynaa ma qabsanaa arrintaa ma galnaa ma ka wada hadalnaa waktigan iminka ah shir la qabtay iyo balan la qaatay iyo cid rasmiya iyo cidna soo xidhito ma jirto warkaasi waa war suuq halkaasaan ku dhaafay waxaan rasmiyaana dee ka jawaabayno waanu soraysanay weliba labada gole iyo cidna wax ma rasmiya sumuuci waxaan xaguul kaga yimi war suuq u daa baalaha faraha badan iminka dhegeysti ku daa marka si cid nala xidhay cid kastaba haatee tiraahdo wada hadal diyaar mawti inaad Soomaaliya wada hadashaan ha fagaara kasta oo caalami watagina weliba waxaan goynaa fagaara caalamka dawladaha waa weli ururada joogaan in gartayda lagu dhageystay waxaan ku doodayno gartayna dastuurkana ku qorantay hawl kale laga dooni maayo hadal badan bal geeyay dastuurkan bal horgeeyay ninka dastuurka jeediyay isaga taala marka taa wareerkeeda iyo hadalkeeda halka ku dhigan waxa soo haray bariyahan dambe bulshada dad badan baa ka hadlay arrintaa dad badan baa ka hadla odayaal baa ka hadlay madax dhaqameedka waa odayaashii dhaqanka marka ninka la madax dhaqameed dee horta wuxuu mas'uul ka yahay reerkaa doortay qaranka isagu ma imanadii laba madax dhaqameedka waa ixtiraamena kaalin weyn bay inoo hayaan madax dhaqameedka waxaanu ka sugaynaa koow inuu yahay nin allihiisa ka baqda nin afkiisa iyo adgiisa war laga nabad galo oo dhowra madax dhaqameedka wax laga horaa nin xishooda nin aan balaado iyo fidmo wadin ee dadka wanaag iyo nabadayn ay ahsaan u dhaxal madax dhaqameedka waxa lagu yaqaanaa oo xeer Soomaaliya inkastoo aan qorayn haddana madax dhaqameed kasta ama caaqil ama suldaan ama ugaas dhaw dadka doortay markuu la hadlay wax qabanayo waxa la suldaanku uu gudoomiyaa ma gooyo ma garamo marka la soo dhameeyo dadku waxay ku heshiiyaan u bataan ayuu gudoomiyaa lama arag suldaan iyo madax dhaqameed isagoo miidiya ka garamaya oo bad walba ka jawaabaya oo diintii ka jawaabaya oo siyaasadda ka jawaabaya oo dhaqaalaha ka jawaabaya oo warbaahinta ka jawaabaya dee lama arag umana xisaara madax dhaqameedka waxaanu ka sugaynaa oon ku waananaa inay ku ekaadaan dhaqankii wanaagsanaa ee islaamka iyo dadka iyo dhaqankeena suubada ahaa ee dadku ilaalin jiray inay ku ekaadaan hadduu ka baxo suldaanku dhaqankii wanaagsanaa wixii loo xisaarto uu bad kala galo wixii badda kaga soo noqday dee ha u diyaar garoob man dakhala ma la yacni laqaya ma la yardi bad aanad garin haddaad faraha la gasho wixii kaaga soo noqda hadiidi waa iga waana guud waxaan ku celinayaa warka laga deeray dadka waaweyn wax laga dhageysta ee magac lehna waa inuu ahaadaa war runa qof weyn oo fagaariye miidiyaha been ka sheegay waa mar subxaanallah su'aalaha waxay wargino geed qof ka dhacday kaana intaasaan waxaan ugu dambaysiinayaa bariyahan dambe waxa iyana taalay arrimii doorashooyinka gudidii maxay ahayd commissionka doorashada horta doorasho warkeeda halkaas la dhigay caalamka oo dhan caawa Mareykanka baa halka dhigay qoladii baasha in guriga jirtay loo jirtay ku culus baa timi teenana waxaanu ka baxna mooyee halkeed ma yaalo xoogeenu wuxuu ku jira maanta tan si looga bixi lahaa waxa si wixii sharciga ah jira in la dhameeyo waa dhowta laba commission oo soo jeedana wada xisbi ayuu golu soo celiyay maalintii horena waan ka hadlay waxaan ku yiri golu waa madax banaan yahay sharcigana iyaga ilaaliya iyaga nagu ilaaliya haddaan xukuumadda nahay waxaanu si xaq u leenahay markay wax soo celiyaan wixii aanu aragno inay dan ku jirto inaan kula noqono talo oo la halka ka eegteen mooyaane barda halka kalena ka eegno waanu sirnay labada shir gudoon arrinta waanu la tagay labada shir gudoon waanu la tagay labada shir gudoon ka hadalnay waxaan islaaf garanay in marka golaha wakiiladu fasaxa ka soo noqdo aan ku soo celiyo labadii ay soo celiyeen una waayay sheegana golaha dhammaantii marka aan u bandhigno oonu kala hadalno sababta ay u baahan tahay in la sii daayo maanta madimaynu doonaynaa khilaaf ma rabno khilaaf dheer oo laba sano ka soo baxnay colaad baa in haysa oo kan cadawga dusheena wuxuu doon kaga hadlaynoo tashanayeen Soomaaliya sana laga yeelaya xanuunkana ay nahayo midnimo baahan marka golahana abiil baan u sameyn doonaa iyagoo xora waxay doonayaan inay sameeyaan in arrinta mar labaad lagu noqdo oo labadaanina halka aan ka joogno ka eegnay nagala eegaan iyadana waan gudbin doonaa labada gudoomiye waa kumaatay yihiin marka shir dhacmaado in naga ogolaadeen markay soo noqdaan golaasha in lagu celiyo taasna meel wacan bayno marsaa ka soconaa anagu intaasaan ku soo koobaya dhowrka qodob aad iyo aad baa u mahadsantihiin